هذا اللي قصو أقوى أمني أما الذي أكو جوجو هذا معانا أكو قرب ساحد وقت حالتهم كجرو أوي حمرا وقصو تجي أنت أي ماذا كل ويلك سياسي صاحبي هاي فاهمة okay iikaadi yarkii dhibaatada kuu geystay ee xamar kugu kufsaday iyo ninkan hadda ku dilay ee rabay inuu ku kufsado masaaxiibay ahaayeen waa gartay وحالي وانا اللي شرقول أنيقة قبل يريد يسوق القراعدي ركي يسوق القراعدي يريد أفوري نين كانوا وحود دقناي قريقة كودقن ما نكفلانين أني صح هذا أسي فيس يريد موسى يسوق القراعين قبل بيريد يسوق القراعدي قبل عيان لدها أيوات قانينا يواركيسين ولا شيء يريد يسوق القراعدي وكفري مركا كفري ninkii ay igu soo booday hadal moo igu darsan wax moo igu darsan diricaawa tuusas iga kala jeexay sariirtuu igu tuuray si kasto intii awoodeeda ahayd karaankii صح intaas ka bacdi markaas difaaci waayo waa qeeliye markaa qeeliye bildinka dad badanaa degan dadkii inta isku soo baxeen sheekadii muxuu bedelay inay gabdha isdagaaleen wali horta kow gabdhaha intaan bay igu dhufteen feerkaas intaas ninka igu dhuftay iyo ceejidaas صح inta buruusaa liiga garaacay madaxa maanta rajaa liiga soo saaray madaxa inta buruusaa liiga garaacay intaan kalene iyo waxaan naagaa igu dhufteen okay waxaan ku weydiinaa dhammaantoodba makuu gacan qaadeen gabdhaha iyo ninkaba all of them kulligood qof ii reebta wax ma leh gabdhaha iyo adiga ma xumaata idinka dhexeeyda ma dagaal baa idinka dhexeeyey hore hal qof oo xumaata naga dhexaysa ma jirto hal qof oo wax naga dhexeeyo ma jiro okay wiilkan iyo wiilka hore ee dhibaatada kuu geystay ee muqdisho kugu kufsaday inay saaxiibba ahaayeen adi hore ma u ogeed mase gadaala ka ogaatay horey waa u ogaay laakiinse ma isdheheenin qofkan waa waxaas buu kugu sameyni kooskii hore waa ninka ma filanaynin absolutely wax ma anina wax mar kasta wax saani geliyo waxaa waay daacadnimo ani aa qabo صح ayuga horta muhiimadda waxaa waaye gabadhan horta dhaawaca ku yaalo waa muuqdaa waan u jeedaa rag iyo dumarna looma kala harin sadar muuqda su-aalka dhan laakiinse wax walba horta ayadaa og ma fahanti su-aal badan horta maanta wax ma tareyso waayo wixii ku dhacay inay soo xasuusato waxaa waaye qalbiga xanuunaya marka baa isdeji maya dhaaf anoo dilan nafisto oo dhiigga ka socdo oo neef qabo oo xabsi lay seexiye fahmo abaayo horta ha ooyin waxaan kugu dhacay qadaray ahaayeen muqdisho wixii kugu qabsadana qadaray ahaayeen tanna waa qadar ilaahay agtiisana cadaalad waa ka heli doontaa adduunkan hadda aad joognana insha allah cadaalad waa ku helaysaa ummadda soomaaliyeed oo dhanaa ku garab taagan dadkii soomaaliyeed ani weligee garab idinma weydiisanin maantaa garab u baahanahay صح صح abaayo fahmo horta fahmo maanta waxasaan u galay dad shisheeye oo ka fogmaa waa dad lacayada saaxiibaheeda ahaayeen sometimes saaxiibtinimada qaar ma fiicno dadka saan u gala maanta waa dad saaxiibaheeda waa dad ay aamintay waa dad soomaalinimo hal qabiil ma aha dad isku jiro waay waa dad saaxiibtinimo ee guri kula nooleed waay dadka maanta saan u gala gabadhan oo nin ugu yeeliyey fahmo iyo maryan hadda insha allah yarkii cabduqaadir jiidle allaa soomaha yarka si fiican sawirkiisa waa ii soo dirtay dhammaan social mediaha waa lagu faafiyey sawirkiisa cabduqaadir jiidley okay gabdhihii dhibaatada kuu geystay imisay ahaayeen gabdhaha dhibaatadii ii geystay laba waxaa la laba maryanaa la dhahaa mid buraaqaa la dhahaa midna waxaa la dhahaa ayuba baasha u keena okay ayuba abaayo horta
horta barasho wanaagsan ani shacni baby yaa lidhahaa asxaabta dhammaan waxaa ku dhacdaa Soomaali waa u jeedin gabdhaha dhibaatada شعني رالي نقو واكو أغان شعني سيف أنا كو أغان أباي شعني رالي نقو marka ماذا حدا عيلة هاي هالكاس أحنونا واسكو لحق سنة عندنا شعني أي باي shacni baby waa horta gabadhan horta ani waa caawinoyaa waa goor walaashay ah yacni waxa ka damqaday dhibaatada ama dhaawaca ku yaalo ma fahantay haddii la dhaho maanta oo dhan yacni hadalka ama xasuusaha ku badinayaan wax faa'iido ma keenayso horta Kenya qadartan waa qadar rabbi wuxuu ku qaw ilaaha ku qora kugu dhacayo fahmo waxa dhihi karnaa waa simirkii oo qof ah waa qof aad u dulqaad badan wallahi tan xigto Kenya horta sharciga ka jiro wadan sharci la'aan ma ahan maanta haddii qof aad dhaawacdid ama qof dhibaato u gaarsiisidne haddaa qof maanta dhaawacda ama dhibaato u geysatidna dee kiiskeeda inuu zakaarin qof walba og wadankaana wadan sharci ka jiro waaye gabadhan xaqeeda ilaahay ha usoo dhiciyo haddii aanaa horta khaasatan gabdhaha Soomaaliyeed maadaama horta ay ka bilaabata sheekada nin waxa dhihi karaa gabdhaha Soomaaliyeed garab aysa siino gabadhan walaasheena waa 12 qof oo isku tagtaa maanta wax u qaban karto صح wax u qabano aan moraal siino aniid u dhisno dadka maanta dadka dhan way u wada siman yihiin fahmo waa qof xanuunsan waxay qabtaa asmay qabtaa neefay qabtaa maanta qof 5 qof sheegay 6 qof in lagu dilo mudan maaha marka maasha Allah fahmane Soomaali Maxamed daana gabdhaha Soomaaliyeed gabdhaha walaalaheed dan garabkeeda nahay waa gawar walaasheena mar walbana hiil iyo hoo garba ula taagannahay intana daawanayso ay adinkoon iskala saaraynin Soomaali Maxamed oo dhan way aaminsantaa gabadhan dada waxa arkaya sheekada afaar qabiil iyo waxa loo joogin u bedeleen sheekada qabiil ma joogto gabar Soomaaliyeed maanta sidee ugu kacnaa taagantahay أنا قبيل قف إيجا مجرت هبينكي لي حري كون قفا وحا إي تاجنيد أي قبيل أهين إلا صبح يهرد إي ساحنين إيسو إدفري عنتو درك ديعون قبيل واحد الله مجرتو أنا قبيل كيغا واجع لها كلنا واجع لها absolutely وصحنتا Soomaali Maxamedey waad aragtaan fahmo wallahi inaana been idin sheegeen dhunta kala go'an waa hadli la ahay dhunta kala go'an madaxa xanuunayo gabadhaas masaakiinta ah dhibaatada loo geystay aad bay maaragtay dareenkayga u kicisay qof walbo Soomaali ah ee live kan daawanayo waad maqasheen fahmo hadalkeeda fahmo waxaa dhibaateeyay 5 gabdhood oo Soomaaliyeed iyo ninkaas sawirkiisa aad aragteen ee la yiraahdo Abduqaadir Jiidley insha Allah dabcan hawshaas waa lagu jiraa oo ninkaas in la soo qabto cadaaladda la hor keeno waaye haddana fahmo waatana oo waa idin soo hor fariisatay qof walba oo fahmo rabay inuu taageero oo rabay inuu fahmo la xiriiro fahmo numberkeedana waa idin sheegaynaa haddana waa taasaa walaalaha taageeraya ee giftiga u diraya dhammaantiin waa mahadsantiin adduuniya aakhira Allah idin barakeeyo fahmo waa walaashiin qofkii Soomaalinimo ugu diraayo qofkii dumarnimo ugu diraayo qofkii walaalnimo ugu diraayo qofkii ehelnimo ugu diraayo dhammaan ummadda Soomaaliyeed gabadhaas Soomaaliyeed waxay idin kaga baahan tahay caawinaad taageerid dhammaantiinba aniga kama seexan wallahi habeen dhawad maraan la hadlay waa seexa waaye ciil bay la seexa weysay ma fahantay 2 maalin waxa uma cunay tiri ma 3 maalin sababtoo ah waxa waaye gabadha dhibka qofkii u geystay gurigeeda anoo suuxsanaa liiga soo jiiday ani xabsiga markii liigeeda qof soo jeeda ma ahayn anoo suuxsan isbitaal meesha liigeelaya xabsi liigee liigu dilay isdeji amsaba wuxuu kugu dhacay hagucaan bis fahmo maanta haddaa shalay saaxiib ku tirsanayd mise qof kale ku tirsanayd maanta fahmo dadkeeda dhexda ugu jirta fahmo maanta waxa xabadku u garaacanayo waa dadkeeda shalay haddii aad saaxiib